ka hadlayay yuhuudda iyo dhibaatada dadka muslimiinta ah ay ku hayaan yuhuud qofka muslimka ah in badan in looga waramo baahi uma qabo kitaabka quraanka uu akhrinayo ayaa xaalkooda iyo xaqiiqadooda cadeeyay waa qoomka ilaahay uu sheegay inay ilaahay caayaan ee aflagaadeeyaan ambiyada iyo rusushana inay laayaan ay dilaan waa qoomka ilaahay uu sheegay inay ka shaqeeyaan dhulka inay fasahaadiyaan waa qoom ilaahay uu nacdalay oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu cadhooday waa qoom wax naxariis iyo tolliinnimaahi aanay ka dhaxayn dadka muslimiinta ah oo cadaawadda u daran u haya dadka muslimiinta latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu maanta biidn illaahi subxana wa tacaala qodobkan ka hadlayaa masaladaasi xidhiidh buu la leeyahay laakiin dhinac kale ayaynu ka eegaynaa hadday yuhuudi kuwaasi yihiin dadka muslimiintaana laga bilaabo maalintii ilaahay nebi maxamed uu soo diray ilaa maanta dhibaatada aynu maqlayno aynu arkayno ay ku hayeen gaalada kale gaar ahaan kiristaanka iyo kuwa wathaniyiinta ayna ay ku garab taagan yihiin dulmiga iyo tacaddiga ilaahay subxaana wa tacaala dulmigooda iyo tacadigooda uu ku jebin doonaa oo in allaha la yumli liلظaalim xataa idaa akhadahu lam yuflitu ka daalimka ee gardarrada iyo tacadiga samaynaya ilahay waa u seeta dheereeya laakiin maalin maalmaha ka mida ilaahay subxaana wa tacaala waa qaban doonaa maalintuu ilaahay qabtana ilaahay subxaana wa tacaala cid ka badbaadin kartaa ma jirto isaguna ilaahay iskama celin karo nebi maxamed baa inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam fii aakhiri zamaan inay dagaalami doonaan alyahuudu wاlmuslimuun wuxu uhi rasuulku tuqaatiluuna alyahuud fatusallatuuna calayhim yuhuud baad la dagaalami doontaan waa laydinku sallidi doona waad ka gacan sarrayn doontaan xataa yaquula alxajaru waاshajar yaa muslimu hada yahuudiyu yakhtabi'u min waraa'i faqtulhu ilaa dhagaxa iyo geedku ay yidhaahdaan muslimow yuhuudi baa iga dambeeya oo igu dhuumanaya kaalayoo dil arrinta noocaasa iyaguna waa yaqiinsan yihiin laakiin waxay sheegaan innaguna qaطcan aynu aaminsannahay dadkaa ilaahay yuhuudu ku sallidi doona ee la dagaalami doonaa inay yihiin kuwo iimaanka xaqiijiyey oo mutaystay nasriga iyo guusha ilaahay inay helaan waa ilaahay baa yihi walayansuranna allahu man yansuruh ilaahay wuxuu u hiilinayaa oo rabbi uu gargaarayaa guusha uu raacinayaa cidda ilaahay subxaana wa tacaala marka hore ugu hiilisa ilaahay diintiisa inay rumeeyaan ay ku toosnaadaan qaala rabbuna subxaanah in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum qodobkan ka hadlayaa wuxuu yahay ayuha almuslimuuna cibaad allah yuhuud iyo nasaara cadaawadda ay dadka muslimiinta u hayaan iyo inay cadow ilaahay yihiin ilaahay baa inoo sheegay arrintaana markhaatigeedii noloshooda iyo waaqicooda ayaynu ku aragnay innaga haddaba maxaynala gudboon ma inaynu ka dhiganno dad aynu jecel lahay oo aynu qalbiga ugu hayno kalgacayl oo aynu xigtaysanayno aynu soo dhowaysanayno oo aynu ku dayanayno oo raadkooda iyo waddadooda aynu gurayno fii umuuri اddiini wاlcaadaati wاlakhlaaq arrimaha diinta iyo caadaadka iyo dhaqamada marka laga hadlayo su-aashaa jawaabteedu ilaahay kitaabkiisay ku taalla qaala allahu subxaanaه wa tacaala linabiyina muxamed wa huwa khiطaab muwajahu ilى kuli muslim ilahay wuxuu ku uhi nebigeenni muxamed waana hadal ku wajahan qof kastoo muslima uma jacalnaaka calى shariicati min alamri faاtabichaa walaa tattabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun shariico dhammaystiran oo kuugu filan adduunyadaada inay kuu hagaajiso wanaag oo dhan ay kugu hagto iyo waddada wanaagsan ee aakhiro loo maray inay kuu tilmaanto ayaa nebi maxamedow kugu soo dejinnay waddadaa saxdee fiican baanu cagta kuu saaray shareecadaasi raac waa diin اlislaam walaa tattabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun kuwaan waxba garanahayn hawadooda iyo doonista naftooda ee ilaahay muraadkiisa khilaafsan
marnaba ha raacin aayaddu waxay caam ku tahay oo si guud ay u tusinaysaa qof kastoo ilaahay sharcigiisa baalmara in la raaco hawadiisa iyo doonistiisa oo isaga tusaale laga dhigto lagu daydaa gaal ha noqdo ama faasiq ha noqdee inaanay bannaanayn qaala allahu subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waاlnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alfaasiqiin muuminiintuu ilaahay subxaana wa tacaala la hadlay rabbi wuxuu uhi muuminiinay yuhuud iyo kiristaan ha ka dhiganina awliyaa macnaa kuwa aad jeceshihiin oo aad u nusraynaysaan oo wanaaggooda iyo dantooda aad ka shaqaynaysaan iyagaa sidaa isu ah iyagaa isjecel iyaga ayaa is-ilaaliya oo midbaka kale u difaaca iyaga ayaa xigtay isu ah oo gaalnimadu ay xigtaysay waman yatawalahu minkum fainahu minhum muslimiinay qofka idinka mid ah ee alyahuud waannasaara awliyaa ka dhigta kuwa uu qalbiga kalgacayl ugu hayo oo dantooda iyo masaalixdooda uu ka shaqaynayo oo iyaga uu ku dayanayo oo tusaale uu ka dhiganayo iyaga ayuu ka mid yahay waxa uu kaga dayday buu kala xukum yahay hadduu gaalnimo yahay waxa uu kaga dayday sidoodu u gaaloobaya waxa uu kaga dayday hadduu bidco yahayna sidoodu u noqonaya mid bidco sameeyey waxa uu kaga dayday hadduu yahay fisqi iyo macsiyo iyo amarka ilaahay wax lagu khilaafayo sidoodoo kale ayuu mas'aladana caasi ugu noqonaya ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay wuxuu inoo tilmaamay gaaladu guud ahaan iyadoon la kala reebreebin cadow ilaahay inay yihiin waxay ilaahay cadow ugu yihiin inay ilaahay subxaana wa tacaala beeniyeen oo rabbi subxaana wa tacaala ay ka kufriyeen oo aanay rumayn rusushii ilaahay uu soo diray ee uu yihi raaco rumeeya inay diideen ilaahay shareecadii uu soo dejiyey u dambaysay ee dadkao dhan uu ku waajibiyey inay raacaan inay diideen oo ay ka soo horjeesteen oy colaadiyeen ay la dagaalameen haddaad tahay muumin dhaba oo ilaahay si dhaba u rumaysan oo rabbi subxaana wa tacaala jecel cidda ilaahay cadow u ah adigana cadow bay kuu yihiin cidda allah cadow u ah muuminiintana cadow u ah waad necbaanaysaa jeclaan maysid isaga ka dhigan maysid hormood iyo tusaale aad ku dayato waad khilaafaysaa oo sida qalbigaagu uga fog yahay ayaa dhaqankaaga iyo camalkaaguna uga fogaanaya ilaahay baa subxaana wa tacaala ku yihi fii kitaabihi alkariim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa muuminiintaay cadowgayga oo gaalada ah iyo idinka cadowgiinna oo gaalada ah ha ka dhiganina awliyaa kuwaad jeceshiin ha ka dhiganina kalgacayl qalbiga aad ugu haysaan iyo soo dhoweyn iyo gacaltooyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka muuminiinta ahi inay gaalada awliye ka dhigtaan iyo xigto inay tahay arrin ka dhalatay calaamadna u ah iimaankooda oo daciifay qofka muslimkaana hadduu iimaankiisu dhammaystiran yahay cidda ilaahay ka kufriday ee cadow ilaahay ah wuu necbaanayaa jeclaan maayo wuu khilaafayaa ku dayan maayo qaala allahu subxaana wa tacaala laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah arki maysid ogaana maysid oo dhici mayso qoom ilaahi iyo aakhiro si dhammaystiran u rumaysani inay jeclaadaan oo qalbiga ay ka jeclaadaan kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay ee ilaahay subxaana wa tacaala halkuu yidhi mara meelaan ahayn maray ee rabbi subxaana wa tacaala cadow u ah rasuulkiisa iyo diintiisana cadow u ah aayaadkaas waxay noo tilmaamayaan qofka muslimkaa inay waajib ku tahay caqiidat lwalaa walbaraa oo dadka muuminiinta ah ee muslimiinta ah midab kastoo ay leeyihiin iyo af kastoo ay ku hadlayaan inuu xigtaysto oo walaalihi ay yihiin sida ilahay uhi inama almu'minuuna ikhwa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uhi almuslimu akhu lmuslim walaalkuna walaalkii waa jecel yahay walaalkii waa u nusreeya waa u hiiliya walaalkii waa u damqadaa oo dhibaatada ku dhacda waa ka murugooda walaalkii wanaagga ayuu la jecel yahay wanaagga ayuu faraa xumaantana uu ka reebaa waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacdi buu hi ilaahay subxana wa tacaala dareenka noocaasi dadka muslimiinta waa inuu galo
oo dadka muslimiinta yuhuud ama kiristaan markay dulminayaan ay ku tacadinayaan ay laynayaan waa inaanu dareenkaaga iyo aragtidaadu noqon carab iyo yuhuud islaynaya dareenkaaga iyo aragtidaadu waa inay noqoto dad muslimiina oo gaala ay dhibaataynayso inay naftaada dhibayaan oo kale dareenkaagu waa inuu noqdo oo qofka muslimka ahi dadka muslimiinta ee kale waxay isaga dhigeen sida jir quro kale haddii uu xanuunsado xubnaha dhan wada xanuunsanayaan hadduu faraxsan yahay wada faraxsanaanayaan haddii uu murugaysan yahayna xubnaha dhami way wada murugaysnaanayaan ayuha almuslimuuna cibaad allah qofka muslimka ah caqiidatul walaa wal bara waxay ku waajibinaysaa gaalada inuu halkaa qalbiga nacayb ugu hayo nooc kastoo ay yihiin yuhuud nasaara majuus wathaniyiin buudiyiin inuu necab yahay taana macnaheedu maaha siduu doono inuu la dhaqmayo sida qaabka loola mucaamaloonaya gaalku nooc kasta uu yahayba shareecadeenna ayaa qeexday qaabkaas ayaana ah qaabkii saxda ahaa qaabka inagoo ula mucaamaloonayna haddana marnaba inooma bannaana inaynu quluubta ka jeclaano oo quluubteennu ay soo dhowayso oo inay guulaystaan